waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xalay lagu qabtay munaasabad ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir isla mar ahaantana lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar iyadoo sidoo kale munaasabadaasi lagaga mahad celinayay dawladda Turkiga muddooyinkii ugu dambeeyay waxqabadka ay u qabatay dawladda Soomaaliya. munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday dawladda Turkiga oo ka mid yahay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale iyadoona sidoo kale mas'uuliyiintii munaasabadaasi goobjoog ka ahayd ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow iyo sidoo kale taliska ciidanka qalabka sida ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. munaasabada ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay dawladda Turkiga iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. mas'uuliyiinta madasha ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow isagoona sidoo kale kaga mahad celiyay dawladda Turkiga waxqabadka ay u qabatay dawladda Soomaaliya. Erdogan wuxuu ahaa geesi u istaagay muslimiinta caalamka oo dhan isla markaana qaatay riski in uu yimaado dalkan oo markaas marxaladiisu aysan aad u wanaagsaneen isagoo ka eega dhanka bini'aadanimada sheegayna in qof muslina meel uu ku dhimanayo in uu dantiisa iyo amnigiisa ka fikiro inaysan ahayn inay tahay si degdeg ah loogu gurmadkaasna wuxuu ahaa kii caalamka oo dhan indhahooda u soo jeediyay Soomaaliya. intaas wixii ka dambeeyay 2011 waxaa soo noolaatay rajada shacabka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed waxay aamineen inay leeyihiin dad walaalo ah u istaagay diyaar u ah isla markaana rajo geliyay taasoo maanta noo suurtagelisay inaan caawa halkan isugu nimaadno si aan dadkaas walaalaha aanahay aan u dhahno waa mahadsantihiin. mudane safiir anigoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka Banaadir waxaan mar kale idinkaga mahad celinaynaa taageeradiina joogtada ah. caawana xafladan waxay tahay tusaale kaliya inaan waa mahadsantihiin kaliya idin dhahno. si kastaba ha ahaatee hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu qabtay munaasabad dawladda Turkiga lagaga mahad celinayay waxqabadka ay u qabatay bulshada Soomaaliyeed. Cabdixakiim Xasan Axmed Cabdixakiim Ducaysane KGS TV Muqdisho.